waxaan dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba isku bogaadinaynaa dagaalka lagula jiro cadowga khawaarijta anagoo runtii ammaan iyo bogaadin ba u jeedinayna madaxweynaha jamhuuriyadda oo hogaaminaya halgankaas iyo hawshaas lagu sifaynayo khawaarijta si gaar haddaan reer Galmudug madaxweyne adigoo guud ahaan dalka in laga sifeeyo khawaarijta u istaagay inaad saldhiggii dhiirigelinta iyo hogaaminta marka koowaad ka soo dhigatay Galmudug waa kaaga mahad celinaynaa dhammaan dadka reer Galmudug dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan isteediyada waa mahad celinaynaa oo madaxdii hogaaminaysa saaxiibada halkaan ma fadhiyaan siday ugu jiraan dagaalka iyo halganka oo qaybtooda iyo hawshooda dhinacooda uga hayaan cadowgani meel gaar ah dagaalkiisu kama socday dhammaan dalku ka socdaa marba meeshii lagu horeynayo ama mudnaanta la siinayo waa uun si kala horumarin mooyaane dagaalka waa lagula jiraa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leenahay walaalayaal sidii horeba madaxweynuhu baaqiisii ama uu soo gudbiyey ama uu ku hogaaminayay waxaan leenahay gacanta aan wada saarno cadowgaas khawaarijta gaar ahaan reer Galmudug waxaan leenahay maantay Galmudug ay ka xoogan tahay Galmudug ay ka socotaa inta yaroo dhiman aan dhammaystirno oo aan ciidamada geesiyaasha ee labada heer dowladeed garab galno oo garab istaagno runtii waxaan rabaa halkaan inaan ka bogaadiyo iyagana ciidamadeenna qaranka ciidanka stateka dadweynaha is abaabulay dhammaan inaan idhaahdo jisadiinna janno Allah ka dhigo waxa aad ka geysateenna meeshii ugu mudneed oo dadaal oo la gelin lahaa baan gelinay guushu waa noo dhowdahay ilaahay idinkii maalmaha yar oo ay rafanayaan oo ay marba meel ku boodayaan waa sidii lagu yaqaanay waa nafka baxoodii waxaan rabnaa inaan dhammaan isugu tagno madax noo dhimay ma jirto madaxweynihii jamhuuriyadda nagu hogaaminaya fadhigan iyo kulankan iyo shirkan ilaahay idinkii inta khawaarijta aan ka sifaynayno inuu meelaha magaalooyinka oo la joogo noogu dambaysaan rabnaa oo dhammaantay aan isugu tagna safafka hore iyo jiidda waan isugu tegaynaa insha allahu tacaala ilaahay idinkii kuwaasi waa gabangabo siday sugaanta uga cabireen abwaanadii Soomaaliyeed bay maanta marayaan waxay been ku soo gabadaan iyo waxay maalinba gabaad meel ka dhigtaan iyo waxay marba meel ka siibtaan maanta insha allahu tacaala rafashadooduna na dhibi mayso dareen kalena na gelin mayso oo aan dhiiranaan ahayn waxa kaliya oo na qanci karaana waa inay ka dhammaadaan dalka guud ahaan oo ilaahay idinkii aan reerto fiican ku qabno mar kale madaxweyne kaaga mahad celinaynaa go'aankaaga waa kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga waa kaaga mahad celinaynaa sida aad ugu istaagtay oo aad arrintaas kaaga go'an tahay oo maanta ay tahay Soomaali baahida ay qabto midda ugu weyn oo aan lahayn baahi kale oo laga dhigo in laga fujiyo cadowgaas khawaarijta oo dambeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mar kale madaxda sharafta leh golaha wadatashiga qaranka oo hogaaminaya mashruuc gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda imaanshihiina joogistiina iyo sida hawlihii dalka guud ahaan ka socday ama ka jiray kuwa ugu muhiimsanaa looga wada hadlay shirka iyo sida runtii midnimada wadajirka iyo gacmo isqabsiga leh oo loo shaqeynayo aad iyo aad baan kugu ammaanaynaa annaga reer Galmudugna imaanshihiina mar kasta wuxuu noo yahay farxad iyo walaalnimo iyo inaan ku faraxsannahay inaad noo timaadaan oo aad shirkiinnii ama shirarkii Soomaali masiirkeedii maslaxada looga hadlayay
halkan looga tashado madaxdeena sharafta leh mar kale waxaan leenahay soo dhowaada mudane madaxweyne mar kale waxaan ku leenahay hoggaan wacan iyo halganka guulaysta iyo tubtaas ay Soomaaliya ku socoto maantay oo aan ka mir dhalino oo aad hoggaanka noogu tahay guul baan isugu rajaynaa reer galmudugna si gaar ah u istaaga go'aankeenuna waa goobaha dagaalka